kulankan oo ka qabsamay hoolka shirarka ee xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa waxa uu ujeedadiisu ahayd in xeer nidaamyo ay ku wada shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka leeyahay la isla gaadho waxaa madashaasi lagu soo bandhigay xeer nidaamyo laga soo dhigtay xeerka waxbarashada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore u ansixiyeen golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina wasaaradda waxbarashada ay ka soo dheegatay nidaamka ku wada shaqeyn doonaan dugsiyada gaarka leeyahay wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Professor محمد فارح حرد أيها كور محير كاسي بقسن يحي سياسة وحبرشة قرنكة دوان مدحونو ساحي مركي برلمان كان لقسو سعي جوتي لقسو سعي بدأ حينونا وساحي سيدا قرب قوضة مياه وشيء ما أنت مدحونو ساحو يحير كان دقة قلية أنتي أنك أقنت إياه ويارجنا ماذا وح خلافسن ماشي أكون بان صودرين وزير كونك وزارة waxbarashada iyo sayniska Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed oo ayaa isna iftiimiyay heerkan iyo waxyaabaha ka doonayaan dugsiyada gaarka ah in ay ku daraan maanta waanu diin yaarnay waxa aanu soo saarnay anagu birkumanaa goona ayad quraanna ma wixii aad ku dari kartaan iyo wixii anagu naga dhimanay idinka hadee dalka muddo ku jiray waxna ma kala leeyin waxaan wax idinkana naga kiin qabta annagana naga kiin qabtuun baynu ugu talagalnay markaan imika wada eegno ka dhamaano waynu sumin guurin doonaa markaa kadib baanu idin soo saari doonaa xeer nidaamyo la idin keeni doonaa saasuma inoo ballan insha Allah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Fartoon ayaa isna tilmaamay in la midayn doono isla markaasina la isku geyn doono afkaarta dugsiyada gaarka loo leeyahay ta wasaaradda waxbarashada isla markaasina la soo saari doono xeer nidaamyo dhammaystiran oo ku wada shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay barashada gaarka ayaanu bariyahan ka shaqeynay guddi baan nooga soo shaqeysay annaguna waanu ku afaqnay waanu ku raacsan salahan hadii aad wax ka qabtaan u baan rabnaa inaad sheegtaan kooxu hadii ay uu sheegay agaasimuhu waxa weeye wixii uun aaraa ay soo jeediyaan u baan la eegi doonaa ma aha waxaan leenahay guddiga go'aan gaaraysa ama wax bedelaysa waxa weeye waa wixii hadii wixii madmadow lagu arko ama haatan wax istusaalayna ama ay ku jiraan u baan rabnaa in la soo eego marka hore waxaan is qabaaday inay ka muhiimsan tahay horta bal waxaan soo saarnay in la eego horta inaad eegtaan markaas wixii gaadhaan si aynu bixin karnaa hadda kulankan oo goobjoog ay ka hayeen wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiin ka socda waaxda cashuuraha bariga ayaa sidoo kale waxa la isku soo qaaday sidii dugsiyada gaarka loo leeyahay hadday noqoto macallimiinta maamulada iyo shaqaalaha iyo dhamaanba cashuuraha kala duwan ee ku waajiba dugsiyada gaarka loogu soo xaray lahaa wasaaradda maaliyadda cashuurtaasi waxay ku waajibi kartaa waxay ku waajibaysaa macallimiinta waxay kaga waajibataa payroll tax amba mushaarka shaqaalaha ku shaqeynaya marka qofkii iskuulka lahaa amba maamulkii withholding cashuurtii uu ka qaadayaa cashuuraha bariga ku soo shubay dadkeenu mid waa inay fahmaan dawladnimadu waxa weeye maxay waxay wehelu tahay kobaca ganacsiga marka imika shuruucdeena waxbarashadu ay kordho ay maxay ahayd wanaagsanaadaan Allahumma salli ala Muhammad wasaaradda waxbarashada capacity-googa oo markasta sii kobco oo dhaqaale lagu maalgeliyo idinkana faa'iido idinta laakiin mid baan idinka digaya haddii aad public sector-ka amba dawladnimada aad tarada amba khatar u dareentaan idinkuna kobcimaysan waynu is dhameystirana private sector-ku wuxuu ku wanaagsan yahay efficiency waxa weeye waxa laga xagga firfircoonida shaqo wanaaga waxaasoo dhan in la ilaaliyo u baahan oo dawladnimada ilaalinaysa dawladnimadaasina waxay ku shaqeynaysaa cashuurtii mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa isugu iman doona kulanka madambaysta oo lagu soo saari doono xeer dhammaystiran oo ay ku wada shaqeeyaan dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda waxbarashada iyo saynisku